guri cusub, nolol cusub, waxyaabo badan baa isbeddel ku socda. Aragtiyo, dhawaaqyo, caraf cusub, cunto qariib kugu ah, xeerar ad adag ee dhanka nolosha. Haddana waxaa jira hal shay oo weli sidiisa ah: jacaylka aad reerkaaga u qabto. Hooyooyin, wiilal, xaasas, walaalo, waxaad rabtaa in dhammaantooda ay noqdaan kuwo faraxsan oo fayaqab ah. Waan ku caawin karnaa. Dunidan cusub aan kula hagno. Si wada jir ayaan ku dhisi karnaa qoysas fayo qaba, iyo adiga oo fayo qaba. Haddii aad ku wado jid aan laami ahayn ama waddada weyn ee interstate, waxaa muhiim ah inaad fahanto sharciyada wadista. U hoggaansanaanta sharciyadan waxay kaa caawinaysaa inaad ka hortagto shilalka baabuurta, oo waxay xaqiijinaysaa badqabkaaga, kan rakaabkaaga, iyo dadka kale ee adiga waddada kula saaran. Gobolka Missouri, qof kasta oo kaxaynaya gaari ama mooto oo ku wada waddooyinka dadweynaha waa inuu haystaa shatiga baabuurta lagu kaxeeyo oo aan dhacsanayn. Dadka gobolka Missouri ku cusub waxay u baahnaan doonaan inay soo qaataan shatiga wadista baabuurta ee gobolka Missouri, xitaa haddii gobol kale ay shati ku soo qaateen. Dhalinyarta ay da'doodu u dhaxayso 16 ilaa 21 sano jir waxay u baahan yihiin oggolaanshaha baabuur wadista oo sheegaya inay yihiin dad dhalinyar ah. Waa inaad wadataa shatiga wadida ama ruqsadda wadida goorta aad jidka baabuur ku wado. Haddii sarkaal ka tirsan sharci fulinta oo uu ku weydiiyo shatiga ama ruqsadda baabuur wadista, waa inaad tustaa. Waa wax sharciga ka soo horjeeda in qof kale aad u oggolaato in shatigaaga baabuur wadista uu isticmaalo. Gobolka Missouri waxaa jira sharci wadida baabuurta oo laga doonayo in darawal kasta in uu raaco. Sharciyadan waxaa lagu sharaxay buug-yaraha lagu magacaabo tilmaamaha wadida ee waaxda dakhliga ee gobolka Missouri. Buug-yarahan oo bilaasha waxaad ka heli kartaa xafiiska waaxda gaadiidka ee degmadaada iyo meelo kale. Ka hor inta aadan qaadan shatiga baabuurka, waxaad u baahnaan doontaa inaad tusto wax aqoonsi ah, oo waa in aad qaadataa 4 imtixaan. Waxaad u baahnaan doontaa inaad tusto cadeymo sida magacaaga, taariikhda dhalashada, goobta qofka uu ku dhashay, lambarka Social Security-ga, iyo cinwaanka halka aad ka degan tahay Missouri. Xogta inta badan waxaa laga helaa warqadda dhalashada, baasaboorka, ama warqadaha dhalashada iyo immigration-ka. Buug-yaraha tilmaamaha wadaha waxay kaa caawinaysaa inaad barato sharciyada wadista baabuurta iyo inaad barato imtixaanada baabuur wadista. Waxaad u baahnaan doontaa inaad qaadato imtixaan ka kooban 25 su'aalood. Ugu yaraan waa inaad si sax ah uga jawaabtaa 20 su'aal si imtixaanka aad ugu baasto. Waa in indhaha lagaa baaraa si loo go'aamiyo haddii aad u baahnaan doonto in ookiyaal aad qaadanayso marka aad wadayso iyo in kale. Waxaad u baahnaan doontaa inaad qaadato imtixaan ka kooban calaamadaha waddooyinka iyo in si sax ah aad uga jawaabto. Ugu dambeyntii, waxaad u baahnaan doontaa in qof imtixaan qaadaha imtixaanka kaa qaado. Dooro baabuur wadistiisa aad adigu istiriix ku qabto oo iska xaqiiji in si fiican uu u shaqeeyo. Imtixaan qaadaha wuxuu ku weydiin doonaa inaad hesho oo aad isticmaasho kontaroolka baabuurka sida daaqa tirtiraha, fareejo bixiyaha, iyo fariinka. Inta aad baabuurka wado, wuxuu ku weydiin doonaa inaad joojiso, leexato oo si sax ah aad isgoysyada uga goyso. Sidoo kale wuxuu ku weydiin doonaa in gaariga si sax ah aad meel u dhigto. Mar haddii aad ku baasto dhammaan 4 imtixaan oo aad hesho shatiga baabuur wadista, waxaad awoodi doontaa inaad baabuur ku wado waddooyinkan gobolka Missouri. Si mas'uuliyad leh baabuurka u wad oo raac sharciyada waddooyinka ee ku qoran buug-yaraha tilmaamaha wadaha. Wadajir uga wada shaqaynaynaa si aan u dhisno qoysas fayo qaba iyo adiga oo fayo qaba.